الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay darsiga horena aan kusoo qaadanay qaabka masiidka loogu miisaamayo qaacido guudna waa sheegnay qaabil اlusuula biاlusuul wacabir الzaa'ida bilafdihi xuruufta ziyaadadana marka waxaa lagu kulmiyaa xuruufta sa'altumuniiha waa 10 xaraf 10kan xaraf mar kasta lama ziyaadiyo mowdic kastana laguma ziyaadiyo shuruud bay leeyihiin waxaan ku bilaabaynaa marka mawaadicu ziyaadati alalifi walyaa'i walwaaw tuzaadu alalifu walwaawu walyaa alifta iyo wowda iyo ya'da waa la ziyaadiyaa bisharti an tusaaxiba akthara min aslayni waxaa shardi ah in ay la socdaan laba asal wixii ka badan bimacnaa aliftu markay la socoto 3 xaraf oo asal ah wixii ka badan ayaa waxaa la dhihi karaa aliftani waa zaa'id laakiin aliftu hadday la socoto 2 xaraf oo asal ah maya shardigii baa la waayay shardigana muxuu ahaa an tusaaxiba akthara min aslayn طيب مثالka wax lagu fahmayaa saabirun oo kale مثلا waxaan leenahay calaa wasni faacilun fiiri marka shuruudii ma helnay 3 xaraf baan haysanaa soo maa 3daas xaraf وأكثر من أصلين لبا أصل بي كبدن يهين ألفت مركا وحان كو حكمينينا هديبا لصعوة 3 حرف وأصل إني تاي حرف زائدة صابر على وزن فاعل وحالم ذا شريف يأذني وحرف زائدة لماذا؟ لأنها صاحبت أكثر من أصلين وحالم ذا جوهر ووذاني وزائد جوهر على وزن فوعل shardigii ahaa an tusaaxiba akthara min aslayni waxaa ku baxaya alifta ku jirta qaala iyo ya'da ku jirta sayf iyo wowda ku jirta dalwun saddexdooduba xuruuf ziyaada ma ahan alalifu fii qaala laysa bixarfin zaa'id alifta ku jirta qaala xaraf zaa'ida ma ahan limaada liannaha lam tusaaxib akthara min aslayni jawaabtaas unbaad bixinaysa aliftaasi lama socoto 2 xaraf oo asal ah wax ka badan bal saaxabat aslayni faqat 2 xaraf oo asala bas bay la socotaa oo ah qaaf iyo laam shardigana wuxuu ahaa akthar 2 asal wixii ka badan bimacnaa waa maxay waa 3 iyo wixii kasii badan wanadiiruhu waxaa la mid ah alyaa'u fi sayf aydan marka saas oo kale weeyaan ya'daani lam tusaaxib akthara min aslayni بل صاحبت أصلين فقط والواو في دلو مركز ساسو كالوية دراهم وجمع درهم درهمنا وكلمة رباعية أو مجردة ألفتن مركز وزياد قابل الأصول بالأصول وعبر الزائد بلفظه دراهم على وزن فعالل ألفتن وزياد لماذا؟ لأنها صاحبت أكثر من أصلين 2 أصل وحي كبدن بي لصعتها هذا مثال كينا وأفر حرف أو أصول كريم على وزن فعيل الياء حرف زائد لماذا؟ لأنها صاحبت أكثر من أصلين سجود وود مركوى زياد لماذا؟ لأنها صاحبت أكثر من أصلين 2 أصل كبدن بي لصعتها مثال كينا مركوى 3 حرف السين والجيم والدال darsiga halkan hanoo joogo waxaa xigi doonaa in sha allahu tacaala mawaadicu ziyaadati almiim miimta mawaadicda lagu ziyaadiyo iyo shuruudeeda hada wabillahi towfiiq wasali allahuma calaa nabiyina muxammadin wacala aalihi wasaxbihi wasalim